degmada Cadaadley ayaanu ku soo dhaweynaynaa dugsigii boodhanka ha Cadaadley waxaan inaynu ku soo dhawaada dugsigan Cadaadley waxa la furay 1900 iyo 63 baa la furay dugsigan halka waxa ka baxay dad badan oo maanta madaxda dawladda iyo dibadda iyo adduunkaba ka ayaa ka qalin jabiyay dugsigan markii qoladii ciidamadii faqashtu nasitay waxa la wareegay inaantay ciidankii inaantay faqashta la wareegtay iskuulkii isagoo sidii sariiri iyo boodhkii iyo wixii oo dhan u yaala bal la wareegay markii dambe 84 dabeedna nasiib wanaag waa inaga dalka markaynu xoreynay dugsigii burbur baa soo gaadhay dubba wasaaradda iyo dadweynaha deegaanka oo iskaashaday dugsigii loo dayactiray maanta dugsiga wuxuu diyaar yahay inuu hawl galo madaxda sharafta waxaan u sheegaynaa inay gacantooda ku jirto sidii dugsigaas uu hawl gali lahaa halka wad secondary uu noo sameeyay kii hoose dhaxay xagga magaaladu noogu sameeyay kan maanta waxaan u baahanay in looga sameeyo halkan jaamacadii deegaankan oo ballaaran waa dugsiga ku yaalo weeyaan haddii ilaahay yiraahdo deewaananu ku soo dhaweynaynaa saxaadada wasiir meeshan waa la wada ogiyo waa la wada garanaya dugsiga wuxuu ahaan jiray rag badan baa ka baxay rag badan maalin baa xaflad halkan lagu qabtay markii la qaban qaabinayay in la dhiso ayaa xaflad halkan lagu qabtay waxa isugu yimid rag badan oo ka baxay oo qaar dibadaha jiraan oo qaar gudaha joogaan oo qaar mas'uuliyiin oo qaar shaqeynaya Ismaaciil Shaqalaa kamid aha Yuunus Cali Nuur baa kamid aha ragii iskuulkan ka baxay isugu yimid Awka kamid aha way fara badnaayeen qalabayntani way ka qayb qaateen imika taarkaas oo kale Ismaaciil Shaqaloo markaa jananka ciidamada ayaa taarkaas ku wareejiyo mariyay oo qaatay isagu nin waliba wuxuu keenayba nin wasiiraha iyo nin dibad ka yimid qurba joogaha iyo nin ganacsadaha nin waliba wuxuu kari karayay ayuu keeno ku darsaday waa la dhisay iskuulkii ma sha Allah waa ka soo dhisan waxa ka dhigan faculty wixii lagu dhigi lahaa wuxuu yahay wixii lagu dhigi lahaa ayaa cidiba u qorsheynin iyo qalabayntii jaamacad baa laga dhigaa farsamo gacmeed baa laga dhigaa iskuul sare uu dhisay degmadu way leedahay iskuul sare wuxuu xidhnaa imika 4 sano 4 sano way ku dhowday hadaan gaarinba waxba kama dhina intuu soo xidhnaa iskuulkan iyo fasax lagu jiro askartu macallimiinta ardaydii la fasaxay fasax laga galay 84 ayuu ciidamadu degeen iyadoo la dhigto oo fasaxii la galay ayuu bay degeen ciidamadu ilaa imika inta yar dib loo dhisay ilaa inta soo baabasan oo xidhnaa marka kulli wax qabadkeedii xukuumadana waa laga sugayaa wasiirkana waa laga sugayaa ilaa agaasimihiisii guud uu la socdaa halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa wasiirkii waxbarashada oo in badan ba kormeer ku soo marayay qaybaha waxbarashada oo aan ku soo dhaweynaynaa warbixintii iskuulka maamulaha ayaa hore u siiyay annaguna waxaan ku sii dabashaarayaa iskuulkan waa kan uu dhan yahay waana lagu tabcay haddii lagu tabcay dhowr sannadood ayuu tacabkiisa weli aanu midho dhalin waxaanu doonaynaa inaad ka midho dhalisaan oo waxa inta loo baahanna aad noogu kordhisaan biyihii waa la geliyo waa la wada biyihii waa ku jiraan si kasta waa u dheeyahay waxa uu ka dhiman waxa weeye gogashii iyo macallimiintii intaana waxaanu rajaynaynaa gogashii iyo macallimiintii intaana waxaanu rajaynaynaa in ay idinku naga kaabtaan waxa jiro kale halkan aynu sii mari doonaa iskuul isagana ay laga qaaday dabayshu shalayto roobna helay waana ka soo leexatay kulli qorshiina ku jiray waxa jiro kale macallimiin aan gurnaysnayn halkaana hoos hanoo loogu eego macallimiinta waxa laga tari karaysaan laga taro